waa xasuusataan dhacdadii furitaanka safaaradda Mareykanka ee Qudus waxa ay ahayd dhacdo aan caadi ahayn oo ay Israa'iil sugaysay muddo dheer balse ma aragteen wax la yaab leh oo aan caadi ahayn intii ay socotay munaasabadu ka warrama ninkan ma taqaanaan ma aha qof caadi ah I can never figure out what the virgin did to deserve that. ninkii la dilo isagoo shahiid ah waxa uu gelayaa jannada waxa uu qaabilayaa 72 xuural cayn ah ma garanayo waxa ay sameeyeen xuural cayntu oo dambi ah si waxa oo kale ugu sameeyay iyagana ma garanayo sababta aan dadka noocaas ula hadlayno Falastiiniyiinta iyo sababta aan u dareemayno in aan ku qasbannahay ka hadlidda xal u helidda laba dawladood waa ninka ka dambeeya furudda safaaradda markan waxa uu ku jeesjeesayaa muslimiinta waxa uu sheegayaa inuusan jirin wax la yiraahdo shacab Falastiin si fiican u faham sheekada hantilaha joorfalka badan ee Sheldon Adelson. Did you know that Sheldon Adelson spent $100 million of his own money? Moogtiin in Sheldon Adelson uu ku bixiyay sanadkii tagay $100 milyan oo ka mid ah hantidiisa gaarka ah ii dhehda 10 ama waxsan mafishaha runtii waa inaad iga xanaaqdo si aad u bixiso hanti intaas la eg waa 84 jir cumrigiisa ku dhamaystay xoolo urursi iyo jacaylka Israa'iil hantidiisa waxa lagu qiyaasaa 44 bilyan oo dollar waxa uuna aad ugu farxaa uguna raaxaystaa inta badan go'aanada uu soo saaro madaxweyne Trump kuwaas oo qaabeeya adduunka anigu ma ihi Israa'iili waa run balse waa saaxiibka gaarka ah ee Netanyahu waana milkiilaha wargeys Israa'iil ah oo lagu qaybiyo si lacag la'aan ah Adelson waxa uu ka dhashay qoys Yuhuud ah oo sabool ah korinimadiisii waxa uu ku dhamaystay beecinta wargeysyada caalamka shaqooyinka waxa uu soo galay lixdameeyadii horaantii toddobaatemeeyadiina waxa uu ahaa mid ka mid ah asaasayaashii carwooyinka Comdex ee qalabka ku shaqeeya korontada waxa uu tagay magaalada Las Vegas dabayaaqadii 80meeyadii waxa uuna hoteelkii dumay ee Sandis u rogay xarun shirarka lagu qabto laguna ciyaaro qamaarka si uu u bedelo wajiga Las Vegas bartamaha 90meeyadii waxa uu dhulka la sameeyay hoteelkii Sandis waxa uuna booskiisii ka dhisay 2 hotel oo ay isku nooc yihiin Sandis kuwaas oo ku kacay $1 bilyan dollar 2000 waxa uu u jihaystay jasiiradda Macau ee Shiinaha halkaasna waxa uu ka taagay dhismihii ugu ballaarnaa ee la dego ee bini'aadamku aqoonsaday taariikhda kaas oo qaatay magaca casino mashruuca xiga ayuu maareeyay Adelson ilaa hantidiisu gaartay 27 milyan oo dollar horaanta sanadkii 2007 si uu u ilaashado hantidiisa ma uusan helin cid ka saaxiibtinimo wanaagsan xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka oo leh qawaaniinta hoos u dhigidda canshuuraha ahna saaxiibka Israa'iil u adeegidda Israa'iil sanadkii 1991 Adelson waxa uu guursaday dhakhtarada Marian Oksharon oo u dhalatay Israa'iil xafladoodii aqalgalku waxa ay ka dhacday magaalada barakaysan ee Qudus markii ugu horeysay aqalka kaniisadka ayaa noqday fadhi farxad iyo rayn buuxisay guurkiisa Marian ayaa furay fasal cusub oo ka mid ah fasalada looga sheekeeyo jacaylka Adelson ee Israa'iil sanadkii 1996 Adelson waxa uu si deeqsinimo ah taageero dhaqaale ugu fidiyay ololihii doorashada ee Netanyahu waxa uu saaxiibkiis dartiis u furay wargeyska Israa'iil Hayom ama Israa'iil Today kaas oo aasaaskiisu ugu kacay $180 milyan oo dollar waxa uuna ka dhigay wargeys si lacag la'aan lagu akhristo ujeedku waxa uu ahaa bidhaaminta masawirada Netanyahu iyo faafinta aragtida midigta fog taasina waxa ay keentay in wargeyska Israa'iil Hayom uu noqdo kan ugu sareeya ee laga akhristo dhammaan dhulalka la haysto Sheldon waxa uu ku bixiyay $50 milyan oo dollar dhismaha madxafka Holocaust oo uu ka dhisay Qudus 25 milyan oo kalena waxa uu ku bixiyay dhismaha iyo casriyeynta jaamacadda Ariel oo laga dhisay dhulalka ay deegaansanayaan Israa'iiliyiintu ee Falastiin Sheldon waxa uu ku maalgeliyay hay'adda Takliid ee isku duwidda safarada xoojinta isku xirka Yuhuudda Mareykanka iyo Israa'iil lacag dhan $70 milyan oo dollar fududeyntii uu sameeyay awgeed waxa barnaamijkaas ku safray 600,000 oo Mareykan Yuhuud ah ilaa maanta ninkani waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa ee riyadii Israa'iil ee ahayd in safaarad Mareykanku leeyahay laga furo Qudus u rogay xaqiiqo dhowr bil ka hor intii aan la furin safaaradda waxa uu wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u ballan qaaday inuu siinayo $500 milyan sidaas awgeed waxa dabiici ahayd inuu istaago safka hore halka ay golihii wasiirada ee Netanyahu istaageen safka saddexaad maalinkii furitaanka safaaradda dhinaciisa waxa fadhiyay Ivanka oo ah gabadha Trump
trump qudhiisuna waxa uu ku kasbaday doorashadii madaxtinimo ee maraykanka taageerada hagarla'aaneed ee sheldon adelson oo weligiiba ahaa maalgeliyaha xisbiga jamhuuriga sannadkii 2008 adelson waxa uu 200 milyan siiyey hay-adda aan faa'iidadoonka ahayn ee freedom watch ujeedkuna waxa uu ahaa faafinta sawirrada musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinkii madaxtinimo ee xilligaas 4 sano kadibna waxa uu bixiyey 120 milyan oo kale oo lagu taageeray musharaxiinta jamhuuriga si ay foodda u saaraan obama musharaxiintaasi ma ahayn xulka xilligooda balse waxa ay aad u taageersanaayeen israa'iil waxa ayna aad u necbaayeen iiraan midda ugu muhiimsan laguna ballamay waxa ay ahayd in laga baajiyo maalqabeenka maraykanka balaayiin dollar oo canshuur ah Sheldon would have been better off offering me $100 million to drop out of the race. sheldon waxa isku dayay inuu iiga faa'iidaysto in badan in uu ii soo bandhigo $100 milyan si aan uga baxo tartanka madaxtinimada wax badan ayuu dhiibay adelson ha yeeshee xoolihiisii waxa ay noqdeen waxba kuma taal kadib markii obama guulaystay sannado ayaa tegey kadibna waxaa yimid doorasho kale adelson waxa uu u diyaarsanaa doorashadaas isaga oo garab taagan markan saaxiibkiisa hantida trump kaas oo helay tabarrucaad dhan $30 milyan si uu u burburiyo riyooyinkii hillary clinton taas oo noqon lahayd haweenaydii ugu horraysay ee xukunto aqalka cad trump xilligaas waxa uu matalayey adelson weliba si adag waa ganacsado leh sooyaalka dhaqaalaha laga sameeyo qamaarka sheegtay oo ku ololeeyey siyaasado hoos u dhigaya canshuuraha iyo siyaasado kale oo col ku ah iiraan kana shaqaynaya danaha saaxiibkiis u dhow sheldon ee netanyahu sheldon waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay maalgeliyayaasha ugu caansan ee ururka difaaca dimuqraadiyadda oo lagu tuhunsan yahay inuu saamayn weyn ku leeyahay siyaasadda aqalka cad marka laga hadlayo gobolka bariga dhexe ma istaagayso maalgelinta sidaas ah ee sheldon ninkani waxa uu sannad walba si gacan furan u maalgeliyaa wax ka badan 30 urur gudaha maraykanka oo keli ah sidaas awgeed waxa uu noqday sannadkii 2016 maalgeliyaha siyaasadeed ee ugu weyn uguna caansan maraykanka muran la'aan iyada oo uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya isaga iyo xubnaha naadiga hantiilayaasha kale ee maraykanka waxaana adelson looga yaqaanaa washington inuu yahay aabbaha ruuxiga ah maxaa yeelay maraykanka iyo adduunka intiisa kaleba waxa uu xasuusinayaa filimkii the godfather kaas oo ka sheekaynaya qisada hal nin oo wax walba xukuma islamarkaana hela wax walba oo uu rabo waana kaa sheldon isaga oo gobolka bariga dhexe ka samaynaya wixii uu rabo waxa uu kasbay aqoonsiga trump ee ah in magaalada qudus noqoto caasimad ay leedahay israa'iil waxa uu diidan yahay dhismaha dowlad falastiin yeelato waxa uuna waxba kama jiraan ka dhigayaa heshiiska iiraan ee nukliyeerka hantiilahan waxaa hor yaalla hadda riyo aan weli dhaboobin waana ku garaacidda iiraan hub nuclear ah. You pick up your cell phone and you call somewhere in Nebraska and you say, okay, let it go. So there's an atomic weapon goes over a ballistic telefoonkaaga gaarka ah ayaad kor u qaadaysaa waxaad la xiriiraysaa qof jooga Nebraska waxaad leedahay hagaag sii daa bambadu waxay ku soo gudbaysaa oo soo xambaaraya gantaal balastig ah waxay ku qarxaysaa bartamaha lamadegaanka qofna wax ma yeelayso kadib waxaad leedahay ma aragtaa bamka labaad wuxuu ku dhacayaa wadnaha dahraan